حقيقة intii dadkaas aawa laga sheekeynayay qofba waxbuu arkayay anigu waxaan arkayay dadkaas oo aan la wada shaqeeyay oo wada asxaabtaydii ahaa una badnaa macallimiintaydii cali suule xasan sheekh muumin allahumma salli calaa maxamed maba dee qiyaas ma laha marka waan yar khalkhalay waxoogaa geeridu waa xaq oo inaguna waan ku xignaa laakiin waxaan yar xusayaa erayo aan ka xasuusto cali suule khaasatan iyo xasan sheekh muumin cali suule wuxuu yidhi waxaan nidhi madax baa maalin madax la soo dhaweynayay oo maaragtay markaasuu wuxuu yidhi ilaahigayow hay tusin maya waxaan ku nidhi waxaa soo socda maxaydaanay madaxweynihii jabuuti iyo madaxweynaheena aysarka iyo waa la soo dhaweynayaa anigu waan ka ducaystay buu yidhi ilaahu way tusin laba madaxweyne oo soomaaliyeed oo saa isu soo hortaagan ilaahu way tusin laakiin wuu arkay uu soo gaadhay marka wuxuu yidhi had iyo jeer rag horseeda baad dirataan hawraartii xilkiina aad huwisaan ninkii ku hodiyo ninkii ku hantaba hawahal ku dhaga inaad hubsatee ma hadhin hadal lays yidhaahdaye hubsiinoo halbaa la siistaa markii aan anigu fanka ku cusbaa waa heesihii lai dhiibay bay ka mid ahayd isagaana ii dhiibay cali suule naxariista janna allah ka waraabiye wuxuu yidhi halyeeye nacasma kala hubiyaay hondolaha waanada hareerka marto hoos iyo sare wuxuu u sheegay heble waa soomaalida haddaanay wax maqal hidaba u lahayn oo hay murtideenni heega dhacdee ma hadhin hadal lays yidhaahdaaye hubsiina halbaa la siistaa adigaa israacin doona inta kale xasan sheekh muuminna wuxuu yidhi haddaan nahay halyeeyada gabi iyo hooballada heesa haloosiga dadweynuhu markuu tala ku haasaawo maalintii hayaan loo lalabeen faraska heensayno rabbi naguma hoojee libtuu nagu hagaajaa dawadaan helaa dalka yagaanu halgamaynaaye hurdow toos xaq iyo baadilkaan kala hufaynaa markaa raggaasi riqaaliya bay ahaayeen aniga dhammaan macallimiintaydii weeyaan intaan ka ahayn kinsi iyo maxaydaanay shay mare in alla inta kaloo dhan fanka wayga horreeyeen waanay soo gacan qabteen giddigoodna waxbay ii sheegeen giddigoodna waxbaan ka qaatay aniguna kuma dadweynahan hanuunina haasaawina danta waagnaa ruwaayaddii waxay ahayd gaarabidhaan geerida horteed noloshu maalin bay ku gudbataa god madow kugu ridaa maalin bay gogol madow garoor kugu waraabisaa geyiga oo dhan maalin bay guddoonshihiisa kaa dhigtaa qudcur iyo caddu eebbow gartoo noloshu waa gaarabidhaan halkaasay ka wadatay ruwaaddu marka in raggaasi aad u qiimo leh aniga waxaa ka mid ahaa macallimiintaydii ninka la yidhaahdo wallaahi weyn baan isku celinayaa ninka la yidhaahdo maxamed axmed kuluc jannada allaha ka waraabiyo waxaa ka mid ahaa cabdi maxamed amiin waa raggii masrix ruwaaddii shabeelnaagooda anigoon waxba ahayn u badheedhay isagoo agtar weyne inuu ruwaadday la dhigo markii dambena igu hambaliyey yidhi siday ahayd baad uga soo baxday markaa fanaaniin wada qiimo badan oo aan la koobi karin saaxiibaday baa ahayn faadumo qaasin hilowle jannada allah ka waraabiyo howlo badan baan wada qabanay safarro badan baan wada gallay kinsi xaaje hadal ruwaad baanu wada dhignay uu lahaa abwaan axmed salabaan bide labada iyaduba oo la odhan jiray waxaa la odhan jiray adugu calaa kulli xaal waxaa lahaa ninkaan la yidhaahdo axmed salabaan bide ruwaaddaasaan wada dhignay shaqo badan baan soo wada qabanay dadkaas waxayn dad qiimo badan dib haddaanu noqdo xaliimo khaliif magool ilaahu jannada gee waa qofkii aan heesaheeda imtixaanka laygaga qaaday ilaa qofku heesa ma watee waxaa la yidhi yaad dooratay iyadaan doortay 3 heesoo leedahay markaan imtixaankii ku galayna codkaygii baa la gartay huryaa iisoo sameeyey laxankii iyo midhihii kuroon jirana laxankuu ii sameeyey huryana codka halkaasaan maalintii aan nafjacaaleele qaaday dacar la qaado isna macallimiintaydii ka mid ah
ويديريي أنا عنكم نقضي halkaasuu fadhiya maanta dacar aad baan uga mahadcelinayaa caawa inuu hor fadhiyo waa dadkii ii dhiiriyey ruwaad gabadh hortay dhigtay buu igu dhiiriyuu yidhi adaaba ku cod wanaagsan qaad waanu ku soo baxay markaa dadkaasi dad qiimo badan bay ahaayeen jannada allah ka waraabiyo caawa inta badan waan ooyay waa in wada garanayay maryan mudday waxaan wada dhignay ruwaadda haddaan ka sheekaynayay ee xasan sheekh muumin ee la yidhaahdo gaarabidhaan waxay matalaysay darajo aan la kala xigin nin walaalkeedoo askariya bay matalaysoo xumaaday oo halkiisii booskiisii gashay markaa ruwaadda waxaa la odhan jiray gaarabidhaan 72 baa la dhigay maryan haddana waxaan wada dhignay ruwaad xasan sheekh muumin lahaa oo sulfe iyo aniga iyo iyada iyo ninka la yidhaahdo sayid khaliifa iyo maryan mudday waxaa la odhan jiray ruwaadda dunidu maskaxday magan u tahay laalaysiya baa ku jiray haye fudud habeenkaan lahaabay hobsiinadoo habbooneed dhinacayga aniga markaa dadkaas dad qiimo badan bay ahaayeen taariikhda xusi doonta ilaahay baa u naxariisanaya waayo xunba may samayn jirin dadka xumaantay ka waanin jireen wanaaggana way u sheegi jireen markaa waan yara qiiroodaye waan ku soo noqon doonaa qofkay wixii ha soo kaco